ishii bugtay ku bikacso warkii hore war soo dhaaf sida halkan u jeedaan waa arday kamid ah ardaydeeda kuwaasoo ku raaxaysanaya suuqa qawaaniintii iyo systemkii suuqana raacaya waxaan leeyahay hambaliyo aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah waa 9 evening class waa class dhameeyay course ka si qurux badan u dhameeyay qaatay imtixaankii ku jira sidaad u jeedaan kuna faraxsan inay imtixaanka waxay uga dhiman tahay suuqa ku raaxaysanaya waxaan leeyahay hambaliyo waa arday si qaas gacanta loogu haayo targetka ardayda aan rabno inaan gacanta ku qabano waa target xadidan hambaliyan leeyahay xitaa lama dhaafayo newsyada waxa looga soo faa'iideysanayaa si nidaamsan oo istiraagjareysan ma sha Allah imtixaankoodii markay saxayaan markay systemka galayaan markay nidaamka galayaan waa arday isla socota farkaligeed forma dhaqdo hora loo dhahay aniga ma dhihin saad u jeedid ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay si qurux badan baa loola wadaagayaa casharadii siraabyadii ugu dambeeyay update-ka hit targetkeedii ayagoo hit gareeyay oo lacagtii bi double ka sii dhigay alxamdulillah saad u jeedid waa dad ku shaqeysta cilmi iyo nidaam iyo system degan ma ahan dad gambling u shaqeysta hadii aad tahay dadka banaanka ka soo caytamaya ka soo aflagaadeysmanaya ayaga way ka guureen halkaas waxay degeen aqligooda inay shaqeystaan inaysan dadka ku dhagin inay wixii faa'iido ah qofka haaya ay ka qaataan ma sha Allah halka uu igula soo wadaagay ardayga si qurux badan buu igula soo wadaagay imtixaankiisa soo gudbiyay WhatsApp-ka page-kan ku leeyahay WhatsApp-ka ma sha Allah halkaan hambaliyo qurux badan baa ka dhacday ardayga dareenkiisa asigoo muujinayo oo faraxsan buu ku soo bandhigay dareenkiisa qoraal ah waxaan leeyahay guuleysta dhamaantiin ardayda Soomaaliyeed ee jecel hami weyn hami fog kale suuqan inay ka gaaraan waxaan leeyahay guuleysta mar walba guuleysta aan idin leeyahay never lose hope weliga iyo allaha hoobkaaga ama rajadaada hoos ha u dhigin qof niyad ka jabi karta malaha niyadaada dhisan kartid congratulations guuleysta. Assalamu alaykum.